Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ardayda dhigata dugsiga Jiilal Jadiid Namuudajiya wiilal iyo gabdhaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maadadu waa Soomaali, fasalku waa 6aad, casharkuna waa heesta la yidhaahdo Hayaan. macalinkuna waa aniga oo ah Xamse Axmed Aadan. kusoo dhawaada casharkeeni maanta. casharkeenu waxa weeyaan heesta la yidhaahdo cutubka heesaha ayaynu bilaabaynaa. waxaanaynu dhiganaynaa heestii koowaad, waana heesta la yidhaahdo ciwaankeeda Hayaan. inta aynaan midhaha heesta u gelin baraynu hordhaca heesta aynu akhrino. waayahay, heestan waxaa curiyey abwaan Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye. abwaan Gaariye waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa. hilaad macnaheedu waa xilli. hilaad ku siman 1951. tacliinta dugsiyada hoose dhexe waxa uu ku qaatay Hargeysa, kadibna dugsiga sare ee Sheekh ayaa uu ku dhammaystay aqoonta dugsiga sare. jaamacaddii La Foole ayaa uu cilmiga biology-ga macnaheedu waxa weeye noole barashada ka bartay. waxa uu ka mid ahaa aqoon-yahanadii helay miisaanka maansada Soomaaliyeed 1970. 1 Oktoobar 2012 ayaa uu ku geeriyooday magaalada Oslo ee dalka Norway, waxaana lagu aasay Hargeysa. maansada Hayaan waxa ay muujinaysaa sida uu mahuraanka u yahay hiigsiga horumarku. waxa uu si cad u qeexayaa jidka lagu gaadho guusha ee ay tahay in ay raacaan dadkeennu. waxa uu yidhi intaas waxaa ku kooban hordhicii heesta. sidaa aynu hordhacaba ku aragnay, heestu waxay ka hadlaysaa waxa loo yaqaano horumarka ayay ka hadlaysaa, iyo horumarku inuu yahay wax loo dadaalo amaba wax mudan in loo hawshoodo inuu yahay ayay ka hadlaysaa heestu. bal aynu midhaha si toosa u bilowno. waxa uu yidhi hayaanku ma meel fog baa. hayaanku waxa weeyaan waa geediga. hilaacu ma beegsabaa. habeenkii socod miyaa. hadhkii ma haseexanbaa. waqtigu ma haloosibaa. beydka hore aan ku noqdo. hadhkii ma haseexanbaa. hadhku waa xilliga ay cadceedu bartamaha cirka joogto. waa xilliga salaada duhur loo qalab qaadanayo. tusaale ahaan 12 buura amaba 11 barka ilaa 12 ayaa la yidhaahdaa hadh. waa xilliga ay cadceedu bartanka cirka taagan tahay. waqtigu ma haloosibaa. haloosi waa waxa soconaya ee aloosan ayaa la yidhaahdaa haloosi. waxa soconaya sida degdeg ah ku dhaafaya ayaa la yidhaahdaa haloosi. marka waqtigu ma haloosibaa. waqtigu ma wax soconaya oo ku dhaafaya waqtigu weeyaan macnaheedu.
ninkii hakadaa boqolka ninkii socodka hakada oo boqol waxaa la yidhaahdaa salaada duhur kadib socdaalka la socdaala ayaa la yidhaahdaa boqole. ninkii hakadaa boqolka ninkii socdaalka hakadaa habaaska miyuu dhaxlaa? Habaasku waa boodhka. Calaashaan wuxuu ka wadaa ninkii socodka yareeya amaba hakadaa boodhka miyuu dhaxlaa? Calaashaan qofkii dadaali waaya horumar la-aan iyo dib u dhac miyuu weligii joogto ku ahaada weyaan macnaheedu. Quruumaha hore u guuray, quruumuhu waa ummadaha. Quruumaha hore u guuray wuxuu imika ka wadaa horumaray. Barwaaqada haybsanaya waa raadinaya. Barwaaqada haybsanaya intaad hiigsan layd gadaasha hareerta ka raacmiya. Waaye hadduu maalku kaa haraado maalku waa xoolaha. Hadduu maalku kaa haraado haddii xooluhu kaa haraadaan buu ka wadaa. Harooyinka geemiyaa, harooyinkuna waa balliyada waaweyne biyuhu galaan. Hurdada ku danseeg miyaa, adduunyadu waa harkaas. Hirba hirbuu daba socdaaye, hirbuu daba socdaa. Hirku waa muuqaalka aadka kaaga fog ee ay buuraha iyo dhulka iyo wixii lamid ay sameeyaan iyo biyaha badda iyo muuqaalka fog ee ay sameeyaan baa la yidhahdaa hir. Hirba hirbuu daba socdaaye calaasha waa jiilba jiil buu daba socdaa. Dadka qoloba qolo ayay daba socota. Jiil markuu dhammaadaba jiil kala imanaya. Hankaaga fogee miyaa, hanku waa hamiga. Hawshaada ku toos miyaa, hubsiima halbaa la siistaa halkii daran baahidaada. Hubsiimo halbaa la siistaa waa mahmaaha. Waan soo dhigana mahmaahda. Halkii daran baahidaada hantida u qorshee miyaa. Hantida u qorshee miyaa, dantaadu ma haybiba. Dantaadu ma haybiba, raadiba. Dantaadu ma raadiba weyaan macnaheedu. Aqoontuna hodan miyaa, iftiin iyo hibo ku ladhan indhoolaha hagi miyaa. Aqoontuna hodan miyaa, aqoontu ma qaninima. Hodanku waa maxay? Waa qaninimada. Iftiin iyo hibo ku ladhan, hibo waa sharaf. Ma aqoontu ma hodanba, hodankaas oo iftiin iyo sharafi ay ku lamaan tahay. Iftiin iyo hibo ku ladhan. Hibo waa sharaf, ku ladhanna ku lamaan. Iftiin iyo hibo ku ladhan. Xagga hore muxuu yidhi? Aqoontuna hodan miyaa, aqoontu qaninimo miyaa, iftiin iyo hibo ku ladhan. Qaninimadaasoo iftiin iyo sharafi ay ku lamaan tahay. Indhoolaha hagi miyaa, aqoontu ma waxa weeyaan mid hagaysa qofka indhahala. Ma sidaasa hadalku wuxuu u dhacayaa? Haa, sidaas u dhacaya. waayahay maanta cashirkeena halkaa inagu joogo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.